magacaygu waxa la yiraahdaa Ismaaciil Xaaji Cali waxaan ka mid ahay dadka degan xaafadda Rinkibi iyo Soomaalida degan xaafadan baan ka mid ahay waxa shalay in soo gaaray war inaan aad ugu farxin oo ku saabsan in shirkadii la qorsheynayay in ay dhisto masaajidka Rinkibi in ay hakisay dhismihii iyo wada shaqayntii ay la lahayd wada dhismaha masaajidkaasi yani warkaas oo noqday war aad iyo aad noo murugo galiyay waayo waxaanu nahay dad badan oo Soomaali badan iyo muslimiin badan ba xaafadan degan baahi weyn baan u qabnay isla markaas niyad weyn baan u haynay in aynu xaafadan mar kamid ah la helo masaajid weyn oo halkaas noqon doona xarun ay bulshada xaafadahan degan oo dhan ay ka faa'iideystaan xaafadahan sida la wada ogyahay waa xaafada inta badan ay ka dhacaan dambiyada falalka dambiyada kala duwan ay ka dhacaan dhalinyarada xaafadan oo lagu tiriyeen xaafada ugu dhalinyarada badan isla markaas dhalinyarada xaafadan waxa weeye dhalinyarada aan haysan meel ay ku qaataan waqtiyadooda dheeraadka ah masaajidkan waxaan ka filaynay qorshuhu ahaa inuu noqdo goob dhalinyaradaasi laga haago goob dadka waayeelada ay ku kulmaan goob caruurteena iyo hooyooyinka iyo dumarkeenuba ay noqdaan meel u noqdo inay ku kulmaan yani riyadii aan lahayn niyadii aan lahayn bay shirkadaasi waxayna tustay in niyadaasi niyad jab ay nagu riday dhaqaale badan ba dadka muslimiinta halkan degan iyo muslimiinta adduunka degan bay ururinayaan si masaajidkaasi loo dhisi lahaa tiina waxaan arkayaa maanta in aysan suurtagal noqon sababtuna sida la sheegay inay tahay in ay jiraan rag kamid ah ragga masaajidkaasi ama mashruuca masaajidka hogaaminayo in lagu soo oogay dambi ku saabsan xag dhaqaale lunsasho ah warkaas sida ay shirkadu qortay website-keeda ku qortay ah yani arrinkaasi aad baan uga dhidhinaynaa ka muwaadin ahaan ka Soomaali ahaan iyo muslimiin ahaanba waxaynu samayn doonaa haddii la yiraahdo in aynu arrinkaasi ka dhiidhino isla markaasi waddo kasta loo mariyo si masaajidkaasi loo dhisi lahaa in masaajidkaasi noqdo masaajid mar uun xaafadan ka soo bidhaama isla markaasi masaajidku wuxuu noqon lahaa goob aad u weyn oo lagu diirsado muslimiinta xaafadan degan insha Allah waxaan rajaynaynaa riyadaasi in ay run noqon doonto haddii la yiraahdo